والد السلامي وأنا كفر حسن أنا مركب كلنا وحنا إذا كجمع هالعليل يا رنتي وحنسي شرف لإذا كجمع هالعليل يا سيد وناكسن يا أدمر ولي من نوسو الويسان هي سيد وكل وحنوم هالعليل يا جالية الصومالية إسطنبول هي دمان أنتي كقيب قادتي قبل قابض مناسبة عن قيمها بدن تاريخها وحنا ملينا يا أنتي هذا اللي أنت بدو اللييري لكن وحنا ربنا كهذا ما دام الوجر أسبوع حرية ده ولحي لباتنكي جون عن صومرني أي لحي سيدو كله تضبي لباتنكي أيضا جون وهي مالنتي ولا له النهيل ولا جبوتي وأن لا هي جبوتاي جرو ولي جها جوكسن سيدا درتين وحرنا مانتين أن قيبر كتابنا مناسبة كود اللولية كنت نسيت جوردي كسر وريجتي مالنتي أي حرية دقادني إسلام كان كو أستيسن مالنتي من لمة الصوماليات وحنسي شرف إيه فرحنا وجوهم بلينا يا دماشات كان لو داقيا دمان أمد الصوماليات ملك السيجوجان مد حنوسن مد عفمات قبا مد فوق إيه مد دولة ملك الصو يكسويه وحنلاقي هاي كل دماشات نبتقليو برواقو بشبش iyo nolol wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay helaan aan u damaashaadno inagoo xusuusanayno noloshii ceesho milix ahayd ee ummadda Soomaaliyeed dhaqanku ahayd wadajir iyo isdhaxgal farxad ku dheehantahay aan caawa ugu dabaaldegno maalintii aynu jamhuuriyadda Soomaaliyeed aynu noqonnay jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaan si gaar ah ugu hambalyeeynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay u soo dhaawacantay u dhibtootay u geeriyootay ilaalinta iyo adeegista difaaca qaranka kuwaas oo ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka waxaad mudan tihiin taalooyin in la idin dhiso ciidamada qalabka sida dableyda alifleyda iyo saraakiisha sarsare meel kasta oo ay joogaan oo ay ku jiraan kuwa furimaha dagaalka jooga ee maalin walba diyaar ugu ah in laga difaacaan cadawga iyo sidoo kale kuwa geeriyooday iyo qoysaskooda waxaan dhammaan leeyahay abaalkiina ma iloobi doono ummadda Soomaaliyeedna waxay mar walba xusuusnaan doontaa naftii aad u horteen dhiigii aad u horteen maalkii aad u horteen iyo geesinimada aad ku difaacdeen sharafka iyo qaranimada Soomaaliyeed waxa iman doonta maalin dhammaantiina la idin karaameyn doono la idin karaameyn doono sidii haliyada caalamka oo kale ciidamadeena qalabka sida waxa ay mudan yihiin xusid karaameyn meel kasta ay joogaan sida darteed ummadda Soomaaliyeed waa inaan u weynaa waa inaan aad u weyneynaa ciidankeena qalabka sida ku faanaa isla markaasna aan ayagana xasuusinaa dadka sida idin jecel ummadda Soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan sida idin jecel sida darteed ciidamada qalabka sida iyagana dhankiina waxa la idin ka rajaynayaa xurmo inaad xurmaysaan oo aad u turtaan dadka sida idin jecel maanta waxaan u dabaaldegaynaa 58 guuradii ka soo wareegatay maalintii xurriyadda iyo helitaanka jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo mid ah waa maalmo ay ku dhex jiraan hanti qaran iyo dhaxal umadeed oo ilaa maanta aan harsanayno waxyaabaha ugu waaweyn uguna muhiimsan inaan xusno waxna ka baranno iskuna dhiirigelino waxa ka mid ah gaar ahaan dhalinyarada astaamaha hogaaminta ay la yimaadeen hogaamiyaashii waqtigaas 1960kii kuwaas oo maanta astaan u ah dimuqraadiyadda iyo nabadda Afrika iyo guud ahaan caalamka sida Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Cabdullaahi Ciise Maxamuud iyo sidoo kale Maxamed Ibraahim Xaaji Cigaal oo hormuud u ahaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynihii ugu horeeyay jamhuuriyadda mudane aadan Cabdullaahi Cusmaan iyo ra'iisul wasaarihiisii Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo markii dambe noqday madaxweyne aniga shakhsi ahaan iyo tiimka ila soo shaqeeyay waxay inoo tahay dareen iyo ahmiyad gaar ah munaasabada kooda Luulyo maadaama aan ku soo shaqeynay xarunta aqalka dawladda hoose ee Officio Governo oo ah xaruntii laga suray calankeena suuban ee samada u eg sidoo kalena ay ku soo shaqeeyeen maamuladii ugu horeeyay oo ay Soomaaliya yeelato wali dareenkaas uu nagu weeyahay waana sii wadi doonaa inaan u adeegno ummadda Soomaaliyeed meel kasta aan joogno
sanad guuradii 58aad ee aan xurriyadda haysanay kana mid ahayn waddamadii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo xurriyad hela waxa muhiim ah in aynu daraasayno halka aynu gaarnay wixii aan ku guulaysanay wixii aan ka gaabinay iyo halka aynu u soconno mustaqbalka dhow iyo kan fog laga soo bilaabo maalinkii xurriyadda aan qaadanay ilaa maanta oo laga joogo 58 sano dalkeenna wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo watay saameyntooda dhaqan dhaqaale masiir bulsho siyaasad iyo mid amni intaba waxa muhiim ah waajibna nagu ah ama waajib ku ah muwaadin kasta inuu ogaado qodobada soo socda qof walba muwaadin waajib ay ku tahay kow himilooyinka ummadeenna ka hor xurriyadda labo guulihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ay gaartay xornimada kadib saddex dhibaatooyinkii dhacay iyo wixii sababay iyo sidoo kale halka aynu maanta marayno si loogu diyaar garoobo loona dhiso mustaqbalka dhow iyo midka fog ee dalka sida aynu wada ognahay 25 sano kasta waxa soo baxa jiil cusub oo mar kasta la jaan qaada xaaladda uu ku dhashay hadba sida ay tahay jiilkaas cusub waxa laga filan karana ay tahay inuu u jihaysto marxaladda uu ku soo koray qarankiisana u jiheeyo sax iyo qaladba sanadihii xurriyadda iyo 25 sano ee ka dambeeyay Soomaaliya waxay gaartay horumar dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada iyadoo ay xoog saartay siyaasadda arrimaha dibadda iyo ciidanka dhanka kale waxa jiray go'aano siyaasi ah oo wali saameyn iyo raadad ku leh caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira maanta una baahan in aan lagu kadsoomin ama lagu qaldamin mar kale waxaan u baahannahay in aan 58 sano kadib isweydiino wixii aan ku guulaysanay muddadii xorriyadda iyo in aan helnay rajadii shalay ee xorriyadda ka hor sidoo kale qiimeeno xaaladaha iyo dabeecadaha siyaasadda Soomaaliya kuwooda dibadda iyo gudaha isla markaana fiiro gaar ah u yeelano dalalka xorriyadda qaatay annaga kadib halka ay maanta joogaan dhaqaale amni iyo siyaasad ahaan iyo waliba wada noolaanshiyaha dadkooda sida dalka Botswana Rwanda iyo Kenya haddii aan tusaale u soo qaato saddexda dal Botswana waxa ay ka mid tahay wadamada ugu dhaqaalaha badan uguna nabdoon ee koonfurta Afrika sidoo kale waxay ka mid ahaayeen ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee Soomaaliya yimid xilligii UNISOM haddii aan tusaale u soo qaadno dalka Rwanda ayadoo dagaal sokeeye ee xasuuq ka dhacay sanadkii 1994 ayaa maanta waxa uu Rwanda ay ka mid tahay dalalka ugu wanaagsan xagga wada noolaanshiyaha dawlad wanaaga iyo kobaca dhaqaalaha fiiro gaar ah labadan dal ee Botswana iyo Rwanda midkoodna ma lahan wax dekad ah kobaca dhaqaalahoodana aad ayuu u sareeyaa haddaan tusaale u soo qaadana dalalka naga dambeeyay waxa ka mid ah Kenya ayadoo marxalado kala duwan ay soo martay haddana maanta hogaankooda siyaasadda ee dalka Kenya waxa ka muuqata xasilooni siyaasadeed maadaama ay dhawaan adduunyada iyo dadkoodaba tuseen dabeecad qaran dabeecadaas qaran oo ah isu tanaasulid iscafin iyo ayagoo tusaale u noqday hogaamiyaasha Afrika iyo caalamka inta kadib munaasabadan 1 Luulyo haddii aan si taxaddar loo eegno 1 Luulyo sanadka 2020 Soomaaliya waxay jirsan doontaa 60 sano oo xorriyad ah waxaana muhiim ah in aynu ku baraarugno xaaladaha iyo isbedelada ka jira qaaradda Afrika si aynu u noqono ummad ka faa'iideysato hibada Ilaahay nagu manaysay dal iyo dadba waxaan tala ahaan u soo jeedinayaa qodobada soo socda kow inaan la nimaano isu duubni wadajir iyo hiigsi qeexan oo nagu haga halka aan rabno in aan gaarno 60 sano kadib xorriyadda labo waxaan ku baaqayaa in muhiimad gaar ah la siiyo doorka dhalinyarada iyo haweenka si loo dhiirigeliyo awoodda dahsoon ee qaybta ugu badan bulshada saddex waxaan ku talinayaa in aan la nimaano siyaasad cad oo furfuran kana turjumaysa danaha qaranka waxaan soo jeedinayaa inaan ka wada shaqeyno iskuna kaashano sidii 2020 60 sano kadib xorriyadda ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici lahayd dalkeenna waxaan Ilaahay ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo horumar amni iyo barwaaqo ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa qayb ka mid ah mirihii heestii ahayd Soomaalinimadan dadka kaga sarreynaa ee uu qaaday fanaanka da'da yar Axmed Xasan Cumar Qalinle uuna alifay Abwaan Cabdullaahi Axmed Cali Fanax waxaa ka mid ahaa miraha heestaas kuwii cadowga saaray midnimada sameeyay saqda dhexe habeenkii surtay caalanka baan nahay
si kastaba ha noqotee soo jireenkiyo dhaqankiyo Soomaalinimadan dadka ugu sameeynaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiina waxaan idin leeyahay hambalyo sanad guuro wanaagsan insha Allah aad baa u mahadsantihiin si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiyo Soomaalinimadan dadka kaga sarreeyna si kastaba ha noqotee